dowladda ruushka ayaa la sheegay inay ciidankeeda badda saldhig uga samaynayso Somaliland taasi oo ah tilaabo ay doonayso inay ku kordhiso awooddeeda militari ee Geeska Afrika. wadahadallo ayaa la wariyay inay u socdaan Somaliland iyo dowladda ruushka kuwaasi oo ku saabsan dhismaha saldhig militari oo qaada 1500 oo askari oo taageera maraakiibta dagaalka iyo gujisyada ruushka ee ka shaqaynaya gobolka iyo marinka badda ee ay maraan maraakiibta daabula badeecadaha Yurub. haddii ay caddaato waxa uu noqon doonaa saldhiggii ugu weynaa ee ruushka uu ka samaysto Afrika tan iyo dagaalkii qaboobaa ee dunida iyo tallaabo weyn oo uu qaaday Vladimir Putin sida uu daabacay bogga internetka ee warbaahinta The Sun oo UK laga leeyahay. goobta saldhigga laga dhisayo waa magaalo xeebeedka Saylac ee Somaliland waana meel u dhow xuduudda Djibouti oo uu Shiinuhu ku leeyahay saldhig military. Dr. Andrew Faxel oo ah agaasimaha xarunta daraasaadka Ruushka Yurub iyo Asia ayaa dasan waxa uu sheegay in Geeska Afrika uu istiraatiijiyad ahaan muhiim yahay sabab badan darteed. waxaa sababahaas ka mid ah ayuu yidhi inuu oggolaanayo awood difaac oo bariga dhexe ah iyo in saamayn lagu yeesho kanaal Suways iyada oo la marayo gacanka cadan. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa awood military kula Djibouti waana inaysan la yaab noqon ayuu yidhi in Ruushku mid taas lamida uu doonayo. dhaqdhaqaaqa ciidanka badda ee Ruushka ayaa waxa ay kordheen sanadihii u dambeeyay. sanadkii 2017 Ruushku waxa uu qaatay hannaan cusub oo ciidamadiisa baddu ay awoodda isugu ballaarinayaan dunida. Geeska Afrika ayuu Ruushku u arkaa inay tahay meesha ay ku tartamayaan dalal kale awoodda military. Ingiriiska ayaa isaguna ka mid ah dalalka doonaya inay saldhig military ka helaan Somaliland oo saaran badda cas. horeyna dowladda Imaaraadka Carabta ayaa magaalada Berbera uga samaysatay saldhig military.